حلو سولجين وابريه هون ما سولجينين لأنه عيد مدوي لكن هذا عيد باب الجواب سلم الجواب وأيام المعدودات واحد كولة يركوبا أيالي ما بعد كولة يهذا من عشان ما غير ما يسون كي وحاله ما كان نادما يقول أنا كان ما بلي يبسني كي كلام سودو كان دليل إن حاجة بيكون ولا ما سال سماعي لكن كي كلام سودو إن أساس عم تسيس ترى اللي ما هنا ما كان عنده محاضرة كجيرين ورمضان كي ورا رمضان كي سود ولا كده واقف مصور يكتب بابا كم قفوا إلهي جالسيو كي كلام بين جريم دونك وحاول يتقارب الزمان زمن كي يسون دوانا وآخر الزمن وحيوان ويقع مع حاجة زمن كي يسون دوانا مركز أسبوعي وحنقول سيد الله عليه وكله بالشيء وحنقول إساسي هذا وقتين جمعة الجوجا جمعي كذا ولا الجوجا حافظين أن تكني صار نقول له وقت ثاني سيسبقت ووصل صبت أحد سنين ثلاثة وقابل الجوجا بالجمعي هذا هو الجوجا ساس السوق قراية بقدر الآذايا كأكون سلاس waxaan isku mashquulay maaha marka waa maalmahaas kooban in loo diyaar garoobo waxa soonka marka kamid ah qaybta marka la soo gaaro tahajjudkii iyo dadaalkii in la laabo waxa kamid ah oo soonka la joogo la xusuusiyaa markii la soomo oo fadligii sadaqada iyo fadligii quraan akhriska iyo fadligii soonka iyo waxa intaas soo sheego ugu dambaysta marka la joogo waxa dana laga sii hadlaa sagootiska iyo zakatul fitriga zakatul fitriga markii soonka uu bilowdo yani waa la diyaar garoobaya waajib ma aha soonka dhexdiisa waajib kuma noqoto yani waajib ku tahay qofkii soo gaara yani soonka dhammaadkiisa iyo ciida ayaa laga rabaa zakadaas marka oo ruux walbana waa madax tiris ayda qaangaar la'aan iyo lab iyo dhadig iyo kuma xirno waa qof kasta oo xilligaas gaara waa laga rabaa waxay ka dhigan tahay lahay salaada haddii ay wax ka halaabaan ومثلا أبغى صلاة كنا أفرع لو عكش كسي صدق ما تكتي بس أفرع تكتي حق عدو ما كان يتاهل بقى ترى ضيّر يا الله قول الساعة هذا الأفر يا عكش كسي صدق مدة تكتي وعلى قصة قال أنا صدق تكتي دي أفرع على الوصول ترى حقيقة كتير الأفر تكتي لكن هذه لا شك كسي ومثلا تقصد ترى الشرع يكون تحت يعني عكت شبه قوات هذيرة ومن هذا وسواستي وصدق أفرع كلا جروي إنها صدق تكتي كسوقات mid kale ku soo darso afar ku noqoto lacala haday shan noqotayna waxa lagu kaba sujuudu sahwi laba sujuudood ta salaada ka bixin ayaad sujuudaysaa bacda assalamu alaykum yalla sujuudaasi waxay kab u tahay wixii salaada ka khaldamay ayay kab u tahay salaadii ku toosinaysaa zakatul fitr waxay ka dhigan tahay sujuudu sahwi salaada lagu kabayo oo kale yaa soonkan waxa lagu kabaaya zakatul fitr دكان صونك على كبايا وحي كان عاي صونك دحديسا من رفث ومن لغو ومن صخب حيابها او كان دعايين ايام كان زكاه الفطر قاعد بحسو سجود ساوي ادولين او كلا اي نقونيسا خلادات كاسي كاتي تريسا صونك نظيف كو نقونا ما قال بخيا يعني hadii la beegayana waxa la afar galaasoo wixii la markaas la beegaya oo lagu bixinayo hadii la cabiraayana 2 kiilo iyo bar oo wixii la cabiraa midna bariiska oo kala ayaa lagu bixiyaa waliba waxa yiraahdaa marka raashinka bas ay ku baxdaa mis qiimaha raashinka oo lagu bixin karaa almuhim qiimaha iyo raashinka waa isku mid mutay hadaan wax kale la sheegin oo lahaynin wax kale lagu bixinayaa oo ay tahay wax lagu bixinayo raashinka la bixinayaa ama qiimaha iyo raashinku waa isku mid oo isku mid ku yihiin qofkan hadii mesela raashinka la siiyo iyo hadii qiimihiisa la siiyo raashin uu ku gadanaya hadii raashinka la siiyo raashinka uu qaadanaya soo waxa ku maamadan geelna waa geel dhan wixii gooyina waa geel yani lacagtu waa geel oo mesela marka qofku muraad uu qabo oo neef geel inuu qasho uu rabo yani bis khasnadiisa iyo accountkiisa uu lacagti ka soo baxsanaya suuq uu tagaya neef geel soo gadanaya geela meel ugu xirna oo gurigiisa geel u yaal ma jirin laakiin waxa jirta arrin oo yani oo goynaysa marka si kale xigmada waxa jira waxa diintu waxay soo dirxay maqaadisu shariica maqaadisu shariica waxa la yiraahdaa maxay u imaatay diintu wax kasta oo la jileynaayo xigmada laga leeyahay zakatul fitr maxaa loo talagalay laba arrimood waxa waa du'matan duhratan lisaa'im wa du'matan lilmasaakiin masaakiinta yaa la qoodinaya nabi sallallahu alayhi wasallam hadii wuxuu ku uqnuu macna su'aal maalintaas ciida dadka masaakiinta inay dadka wax weydiistaan ka deeqo
wax ay ku fariistaan oo ay yani ay ku degaan oo ayna inay ugu baahanin inay wax weydiistaan hala siiyo. hadda xilli waxaa jirta gaajo ay jirto oo dadku raashinku uu muhiim yahay oo lacagta ay waxba lagu falin maxaa yeelay lacagta ayada sida looma cuno lama leqleqo laakiin wixii ay kuu goysa ayaa manaafacaadkeedu u yimaadaan. haddii marka majaaca iyo baahi ay jirto oo raashinkaba lala-yahay raashinka in la siiyaa fadli badan. haddii laakiin raashinkii uu yaallo oo suuqii raashinkii uu ka buuxo qofka miskiinka ah maslaxadiisaa la fiirinaayo maxaa yeele asalkii horeba asagaa loo jideeyey farada rasuulullahi sala allahu alay slam zakaata alfitr nabiga asagaa jideeyey wuxuu u jideeyey uqnuhum can su-aal dadkayga wax weydiisan wax siiya masaakiinta maslaxada miskiinka ayaa ina xukunta marka haddii maslaxadiisu ay ku jirto inaan raashin siinin raashinkaa la siinayaa haddii maslaxadiisu ay ku jirto in loo qiimeeyana raashinkii intaan u qiimayno intii aan raashinka ku gaadi lahayn asaan siinaynaa 4 galaas haddaad dhiibayso oo galaasi ay 10 kun ay tahay oo 40 kun ay tahay miskiinka 40 kun sii 40 kun haddaad siisay macnaheed 4 galaas waad siisay wuxuu asagoo markaa samaysanaya 40kii aad siisay asaga kala qaybsanaya qaar wuxuu ku gadanayaa raashin qaar wuxuu ku gadanayaa saliid qaar wuxuu ku gadanayaa maxay sokor qaar wuxuu kusoo gadanayaa dhuxul qaar hadduu rabo waxaa waaye in yar oo hudhay ah haddii ilmihiisa oo yani ilciid yani way u qaybsamaysaa. haddii laakiin aad tirado maya aniga 4 galaas leen u geynaa ayuu u geeya 4 galaas waa u geysay bacmido ugu shaqtay iga qiblo uu kaa qiblooday dukaankii adiga aad ka soo gaday dib ugu celinaa markaasuu leeyahay 4 galaas oo zakaatu fidr ii siiyey meeqaa iga siina intii adigu kaa soo siiyey waa la hubaa dukaanku inuusan ka siinayn miskiinka ee uu ka dhimaayo uu leeyahay meeqaa iga siina 10 asiga laga soo siiyey hadhow markuu miskiinkii dib u celiyo galeydii 10 ma soo siina laanna inuu ka faa'iido rabaa wuxuu leeyahay waxaan kaa siinayaa xabadiiba ina u dhihi kara markaa saasay tahay 7 8 ya ayuu inuu xisaabo marka haddii 7 loo xisaabo so minus ma gelaayo 40 so minus kama gelaayo adiga marka yaa u danaysay adiga wax bixiyey ma dukaanlaha u danaysay oo taajirka ah mise miskiinka u danaysay haddaad miskiinkii uu dib ugu soo celinayo oo wixii ka nusqaamaayo aad ku dhibtoo tirado maya aniga galeyna leen bixinaya oo isagu dib ugu soo celinaya raqiis looga gadaayo waxaa u danaysa dukaanley laakiin haddii 40kiisi aad siiso 40 u haystaa 40kiisas marka hadduu doono galey meeshay 4 oo aad adiga ka siisay 2 galey ha kusoo gato labada kalena iidaan iyo suugadii iyo wixii kale iyo dhuxushii ku karsan asaga isku macbalayso almuhim miskiinkana loo jideeyey maxaa loo jideeyey zakaatul fidriga waxaa loo jideeyey maslaxatul miskiinna way isbabedeshaa hadba xilliga la joogo oo hadda matalan 60kii wax oo dadkeena aynu ku fikirayn oo aan daruuriga u ahayn yaa hadda waxaa laga yaabaa innaga inay nooga mid yihiin waxyaabaha daruuriga ah oo waxaa ka mid a tusaale ahaan baabuur in la raaco hadda qof hadduu soo baabuur oo suuqa usoo raacin oo yidhahdo gurigaan kasoo lugeynaya maadaama magaalada ay ballaartay wuu rafaadaya laakiin dadkii 60kii joogay intooda yar iska ahayd meel yaroo kooban ayay ahayd baabuur inay raacaan wax weyn umayna ahayn taas waxaa kasii daran inay mobile sentiyo ku shubtaan oo dadka kula hadlaan waxay ugu fadhiyeen maba una jirinba laakiin hadda hal maalin dad mobileka guriga uga soo tagto tusaale ahaan oo soo hilmaanto seenu noqotaa marka dad suuqa aad joogto maxaa dhahaysin dhagoole camalaaba noqday yani wax kula soo xiriiraya male waxaa la xiris nolosheeniyaa ku xiranta marka duruuftu way isbabedeshaa marka diintuna waxay la socotaa duruuftaas isbedelaysa waxay usoo degday litaxqiiqi maslaxa dadka masaalixdooda inay xaqiijiso saas imaam maalik wuxuu dhihi jiray meeshii maslaxada dadka yani ay ku xasilayso fathama sharcu llahi sharci ilahi waaba halkaas marka haddii qiimaha ay maslaxadii miskiinka ku xasilayso fathama sharcu llah haddii raashinka ay ku xasilayso oo baahida raashinku ay badan tahay fathama sharcu llah yani waxaa isbedelaya hadba xaaladda lagu sugan yahay sida ay tahay taasna fadligaas ay leedahay oo waa kabitaan waxaa ku sii xiga markuu soonku inoo dhammaado 6 maalmood ee la soomay ee shawaalka yidhahdo 6daas maalmood waxay ka dhigan yihiin sanadkii xisaabtiisa lagu xiraaya oo nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkii soonka sooma 6 maalmoodna raaciya wuxuu la mid yahay sidii sanad oo dhan qofkii soomay sanadkoo dhan xisaabka korreetira loo qaatay say saas ku dhacaysaa halkii maalin ee ramadaan ah wuxuu u dhigmaa 10 maalmood man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha marka 30 maalmood ee ramadaanka waxaad ku dhufataa midkiiba 10 maalmood meeqay noqonaysaa 300 oo maalmood 6da shawaalka fii 7 waa laga dhigi kari 4 waa laga dhigi kari 8 waa laga meesha xisaabay ku socotaa sanadka raba in lagu jaangooyo sanadku meequu ka kooban yahay 360 maalmood ayuu sanadkii yahay 12 bilood waa 360 maalmood 360kii maalmood soonkooda ramadaanku wuxuu qaatay 10 bilood
ومعنى صدح بقول أو مع الموت بيقول هاي وطبعا بلاد سنة كم حكى لمن لما بلاد لمن لما دي بلاد حال هاي لحدا شوال كأول الصوم وحيقول لك أنت من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله سنة كورونا يوصوم سنة كورونا سوق صوم مكة لحدا حتكونوا فتاة هالكي مال انتوا كونوا فايدا واللحدا المعلومات لحدا المعلومات ما قبل بلاد ولا بلاد صوم كي ما قال هيستي طبعا بلاد طبعا كي بلاد صوم كل وحتكون استلالم بلاد يلقوها اللحدا المعلومات الشوال ولا طبعا بلاد أساسه قطع dadka qaarkii waxay ku haraayeen marka bis 10 maalmood soo ma ka dhamaaday ko waxa ay soonka masuuliyiin sabuudi iska dhaafay albaab xataa ma ginayna marna ay ka dhamaaday saan ku soo banay loogeyn dadka qaarkii way sabuudinaayeen marka qofkii 10 ku ekeysana 10 biloodna waxa uu sabuudinay 10 kiisa iska haysto qofkii xoogaa si yar dhaweynayo soonka sabuudinaayeen labada bilood ee 6 maalmood laba bilood gudaheeda ma badno la dhamaystira ayaa fiican shartina ma hayno isku xigaan waad kala dheeraysan kartaa khamiista iyo jumcada macna khamiista iyo isniinta waad ku sameeyay kartaa dadku waxay jecel yihiin caloosha intayna weli la qabsanin cuntada ee soonkii soo waday halka maalin ciida markay ka dhex bixiyaan inay horka bilaabaan si calooshii uu weli soonkii idan runtii caloosha maskaxda la shaqeysa amar la siiyaa waa la damiyey soddonkii maalmood ee soo dhaaf soonka damiyey weli marka ma la istaarin uma ina baran cunto way iskala qabsan diyaarad mar hadday kacdo bayloodka doona ma iska istaagi kara kicitaanka hor maadara marka soonkii oo lagu soo kiciyay oo ay hawada qabsatay shawaalkii dhexdiisii dadka qaar waxay jecel marka inay hal mar istaba dhigaano inta ay wali diyaaradu ayna degin ay dhameeyaan marka maalinta lixda maalinta ciida markii laga bixiyo lixda ku xigta maalinta toddobaad ee shawaal ayaa waxay dadka saalixiinta u yaqaanaan ciidul abraar ciida dadka baahiyaasha bimaana ku 10 bilood soomayna ciidoodii waxay ahayd lixda beri ka hor maalintii ciiday ciideen 10 ayay ku hareen dadka intay maalinka ciida ciideen maalinka la hadana kala bilaabay lixdii israaciyay maalinka toddobaad ay saas ay noqotay oo u dhamaaday wadicii ayaa waxay maanta waxa la joogaa ciidul abraar dadkii baariga ah ee saanadkii dhamaystay ayaa ciidoodii ay tahay marka intaas noo wada noqoto ramadaanka intaas insha Allah ka soo dhaweynaa taala hadan dheeray inta ka su'aalaha kala gaar iyo niqaashka ayaan gudbinaa sallallahu alayhi wa sallam